shirkan wuxuu maaragtay xoojinaya shirkii hore qodobadii markii la isla gartay kamid ah in dhalinyaro guud oo beesha la dhiso ayuu kamid yahay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا خيارة الشرف له وبرنامج عن دين كسر ديارنا شركة دلنيرة باشا عيسى أو شلك دعي مقالة عدير الدبي هول كشركة إيوغاس حسن حرسي waxaa shirkaasi ka soo qayb galay marti sharaf milga iyo sharaf leh oo mug weyn ku leh ummadda Soomaaliyeed. marti sharafkaasi Zainab ay waxa kamid ahaa ugaaska beesha Ciise, suldaanka beesha Samaroon, suldaanka Ogaadeenka, suldaanka beesha Hartida iyo waliba suldaanka beesha Hawiye. waxayna halkaasi ka soo jeediyeen khudbado iyagu ku qotomay midnimada iyo wada noolaanshaha bulshada ku dhaqan gobolka City. isla markaana waxay sheegeen in wada noolaanshaha oo la xoojiyo ay tahay arrin aad u wanaagsan. xeerka Ciisahana uu yahay mid soo jireen oo isagu mar waliba ka shaqeeya midnimada iyo wada noolaanshaha. dhalinyar badan oo ka kala socotay 12 degmo ee uu ka kooban yahay gobolka City iyo dhalinyarada Diridhabe oo iyagu matalayay degmooyinkii ay ka socdeen ayaa soo buux dhaafay hoolka shirarka ee ugaas Xasan Xirsi, waxaana halkaasi la isku weydaarsaday fikrado ku qotoma midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. marti sharafka halkaasi ka soo qayb gashay ay sheegtay in dhalinyarada la dhiso ay tahay muhiimad aad u weyn oo ugu fadhida ahmiyad sare guud ahaanba dadka Soomaaliyeed. waxayna sheegeen in dhibaatooyin badan ay ka jiraan gobolka City isla markaana dhalinyaradani looga baahan yahay wax ka qabadka dhibaatooyinkaasi. dhalinyaradu waa xooga ay haysato bulsho, haddii dhalintu wanaagsanaatana waxa wanaagsanaada guud ahaanba bulshada. waxaana looga fadhiyaa bay yiraahdeen dhalinyarada halkan lagu soo dooran doono in ay isgarab taagaan dhibaatooyinka ka jira gobolka City isla markaana xal waara loo helo. waxa kale ay sheegeen in dhalinta iyaga looga fadhiyo isku soo dhaweynta beelaha taga guud ahaanba deegaanka Soomaalida. ugu dambeyntii waxaanu halkaasi waraysi kula yeelanay qaar kamid ah dhalinyaradii ka soo qayb gashay shirka dhalinyarada beesha Ciise, waxaana hadaladoodii kamid ahaa sidan. الرحمن الرحيم aad baa idin salaamaya Sima TV. ujeedada shirkan loo lahaa ama ujeedada shirkan loo furay waxay ahayd in dhalinyaro la soo doorto, dhalinyartaas oo ah 13 xubnood. 13 xubnood ee dhalinyarada shuruudaha iyo kariteelka lagu dooranayo waxaa kamid ah waa inuu qofku ahaada qof diin leh, waa inuu qofku ahaada qof maaragtay aamina, qof waa inuu lahayn wax balwad ah ama wax usuus ah waxay dadka Itoobiyaanka u yaqaanin, ama wax balwad waa inuu qofku lahayn, waa inuu qofku yahay qof aan baahnayn oo maaragtay baahidu way badan tahay, waa inuu qofka qof baahnayn oo qof waxaysta u yahay, waa inuu qofku qof aqoon la yahay. afarta shardi baa laga rabaa dadka la soo dooranayo inay ahaadaan waxyaabaha baahida keentay in maaragtay 13 qof la doortayna waxa weeye dhibaatada beesha Ciise, dhalinyarada beesha Ciise ku habsatay ama dhibaatooyinka badan ee jira daraadeed si looga bixi lahaa dadka samata bixin lahaa la rabaa. waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa 13 qof inay noqdaan 13 qof oo ummadda samata bixisa, maadaama oo siyaasadii iyo dhaqankii iyo diintiiba ay beeshu aad ugu liidatay sanadahan dambeeyay oo dad ajadooyin kale ama ujeedooyin kale ay soo galeen meesha. dhalinyaradan waxaan ka rabnaa inay noqdaan dhalinyaradii la xisaabtamisay, dhaqanka la xisaabtamisay, siyaasadda la xisaabtamisay, dalka iyo dadkana wax u tarisay. marka waxaan ku boorinayaa dhalinyarada walaalaha gobolka ka yimiday iyo ismaamulka Diridhabe mas'uuliyadan idinkaana iskale. waxaad intaa oo safar aad u soo gasheen waa inaad kamera dhalisaan, waa inaad Ilaahay ka baqdaan. ugu muhiimsan waa taa Ilaahay waa in laga baqo,
وأنا دتك سيد الشرعي هاي شروط أو تعلو وين لو صور دورت الصدح يتوان كقف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت ومالين تاريخية وبشي شنات صدق كذي لبعض كصدح اللاتنكا ومالين أد مقدسة مالين أسكوي مادين أورك رنيرتا بالوين تعيسة وأنا وقت مناسب كوا وحنوقف صومي إن دقموين كوردن لقي مادو وأرن نفرحت جلسي ويان تاس إن إسبرشوا وحوض قبسي وضع تشيسو وضع تشي maadaama lagu jiro waqti adag dagaalo ka socda Afrigeysooda meel walba ka socda gaar ahaan Soomaalida deegaanka iyo gaar ahaan gobolka City sidii wax qabad iyo midnimo looga bixi lahaa dadkana waqtigu dagaalada ay dib u dhac ku dhacayna wax loogu qaban lahaa maadaama dhalinyar mutacalimiina iyo dadka indhaha u ahaa ay kulmeen oo dan la isku yimiday أرن مستقبل أوين طريق في عن يعني نوقف صومين لجيحه وحن كلون نوقف صومين الحمد لله إن تدخل ميدا يهين دمان صومالي ورن قارهان بالوين تأسير دنير تدا وأنا كفر أحسن هاي وأنا سوى ذنا إن شاء الله أنت إلى هي رهضو والله هو وقتي إن لدسوا وحلاقوا بهذا وحويان إن أرن كاسية دا وقت جيسيا وأنا كسر دعي وأنا وقت اللي سجى إن شاء الله وأنا مناسب وحنا لاقوا بهذا وحويان إن وقتي دجالدا يو هرمر لعنت يو دباتوينك يو واحد بدن دتك واحد كتر لها أيهين دجيلك واحد بدل وردنير تينا أي تاي السلام عليكم كل ما تحن هرجونا وهولك دوكسيجا وقاس حسن حرسي أم باردي صلاه وكلن كده نيردا بيش الصوماليات بيش عيسى الدكتور قبل كسيتي يدربه جل سعودك عندنا هاي جودي قبل قبضة سفيا عم بيعرفون ناقص عين ماتنا ما دش يبان جوجنا وهذا مرة تاسي وقت غير وحنا وجدنا أفتنكا وحنا ورجينا إن شاء الله تعالى كلن كنيد اللي يرضوا أي كون رسنيان يصير من نبض ده يهرمون تودا مرة قريب قدنا الهين سفيا عم بيقول ناقص عين هل كانوا حكى صبيح دونه جودي كلا دوان أبغى قليل كلا دوان ومرة تاسي هو جامنا حاجة يسكحركا حاجة هرمونتا حاجة مرة تاسي محل رأيك قريب قداشة بالعدا يومارة تاسي اسكو حركة بالشدة ساس ونقدنا إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو ذاكر علمي يونس وحن كسر ذاتك ماذا حتى قال وحن ما نتوي من شركة مدني ماذا بيش عيسى وحن جعله هاي إن بيش وسكتو مناطو أي هل مدن نقطة أي هل هدف يلته أي هل ميل كدوشو وحن آد وسوه الجيدا وآد عن بارينيا أرميه كدعي قلبيت كأي نجوهيسين أي نجوهين قليوين كان عفرتها أي دتكيني يجوا حبق لبسن ما تداها أي وحويان أي نفكوين أرتا شركة يساكا الحمد لله أرتا كدقماهان لبيو تون حمنات بان باقي لبيو طبعا كيجي حمنات باوان وحويان وانكسو أجيبني واني مني شركة لنا وشر لقوم بدينا يو باشا عيسى وشر لقوم بدينا يو باشا عيسى وشر لقوم بدينا يو صومالي أرتا مركا عاد دحدين عن نظيفنا وان صومالي وجود بينا دحدين عن نظيفنا دحدين مركا نظيفنا وان تشنا وجود بينا marka maanta shirka maanta waxaan kala kulannay fan weyn baan ka qaadanay waxa shirka goobjoog ka ahaa aabaheeni beesha aaba Mustafa Ibrahim Maxamed oogaaska ahaa shirku si fiican buu magaranaysaanay u dhacay una qabsamay macal suldaanadii beelaha ayaa ka soo qayb galay shirka suldaanadii beelaha Soomaaliyeed way ka soo qayb galeen waxa kale oo magaranaysaanay aad aan xagan aan ugu bogaadinayaa guddiga qabanqaabada door muhiim ay ka qaateen degmooyinka isku xil qaadeen ay saa u doorayeen marka waxa shirkan waxaan rabaa inuu sii socdo waxaan rabaa in beesha ciise ay mid noqotaan rabaa diyaarna waxaan nahay ka degmo ahaan hoo yahiina la garab joogno beeshana watahay daawadayaal waxaa intaas inagu dhan barnaamijkan inaga soo diyaarnay shirkii dhalinyarada beesha ciise oo isagu socday shalay toola inta barnaamijkan barnaamij ku kulmi doono wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh